السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiin ba meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyadeena aan idinku talagalnay xilligan habeenimo waa barnaamijka aynu ku soo gudbino macluumaadka wararkii ugu waaweynaa ee dhacay saacadihii la soo dhaafay. barnaamijkeena habeenimo iyadoo taariikhdu ay tahay kowda bisha August maalinimo khamiisa waxaan idinku soo gudbin doonaa qodobo aad muhiim u ah. waxaa kamid ah hogaamiyaha Xisbullah Sheikh Xasan Nasrullah oo maanta khudbad dheer jeediyay ayaa si adag ugu dhaartay Israa'iil wuxuuna ballan ku qaaday koonfurta iyo waqooyiga Israa'iil ba inay duqeynayaan oo ay weerarayaan awal xuduudda kaliya ku koobnaa laakiin hadda wuxuu yiri waa lugta furan waana aar gudanayna ayuu leeyahay. haddaba waxaa sidoo kale aan idin hayaa abaanduulaha ciidanka Iiraan oo isaguna la yiri amarkeena waan haysanaa daraasadii ayaanu ku jirnaa saacadaha soo socda halkii aynu ka bilaabi lahayn weerarka aynu ku qaadayno Israa'iil oo la sheegayo inay heegan gashay Ruushka oo ka hadlay arrimaha ka taagan gobolka Bariga Dhexe iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo dalbaday hogaamiyaha mucaaradka inuu la kulmo si markaa ay uga wada hadlaan xaaladda amni ee soo food saartay Israa'iil. haddaba qodobadaasi iyo wixii kale soo kordha ayaanu barnaamijkeena idinku la wadaagi doonaa. kulanti wanaagsan markale khiyaaray meel kasto aad joogtaan waa barnaamijkeena habeenimo maanta oo khamiis aan idin soo gudbinayno macluumaad aad u xiiso badan ayaan idinku hayaa. marka hore waxaan ku bilaabaynaa hogaamiyaha Xisbullah Sheikh Xasan Nasrullah oo hadal aad u dheer jeediyay mar uu ka qayb galayay arrin ku saabsan aaskii loo sameeyay taliyihiisii ciidamada Fuad Shukri. haddaba Sheikh Xasan Nasrullah waxyaabihii uu yiri waxaa kamid ah sida Al Jazeera ay soo koobtay oo halkan ku qoran xogayaha guud ee Xisbullah Sheikh Xasan Nasrullah ayaa jeediyay kelimad mar uu ka qayb galayay munaasabada aaska loo sameeyay taliyaha militarigiisa ee xisbiga Fuad Shukri waxaana uu ku dhintay weerar ay Israa'iil ku qaaday nawaaxiga Beirut koonfurta nawaaxiga Beirut maalinimadii talaadada habeenkeedii. haddaba waxa uu sheegay Xasan Nasrullah hadalkiisa uu ku adkeeyay in ay shirka yihiin Hamas iyo Xisbullah ayna ku shirkoobeen sida uu yiri inay muqaawamada ka wada shaqeeyaan shahaadana wada qaataan oo marka dambana ay guul markaasi wanaagsan ay gaari doonaan. waa tahay marka Xasan Nasrullah hadalkiisa wuu dheeraa dhowr qodob oo Al Jazeera ka qortay waxaa kamid ah wuxuu yiri Israa'iil waxay weerartay ha ogaato meel dad rayda degan yihiin dad rayda meelay degan yihiin ayay weerartay waxay ku dishay taliyaheena dad badan oo raydana way ku dhinteen way ku dhaawacmeen. waxa soo kale halka ku dhintay uu leeyahay sarkaal Iiraan u dhashayna halkaas ku dhintay. marka xero military ma aha meel military degan yahay ma waa meel shacab. marka macnaheeda ogaada annaguna meel aan deyn doonna ma leh shacab iyo shacab la'aan ma kala leeyihiin adika noo bilaabay. mid kale wuxuu yiri weerarkan ay nagu soo qaadeen waxay qiil uga dhigeen inaanu annagu weerarnay deegaan markaas Majdul Shams la yiraahdo oo Suuriya dhulka ay ka boobeen oo 12 kaga dhimatay. waa u sheegnuu yiri annaga manihin kuwaas annaga maaha waxa weerar ka qaaday ee gantaalkiina isaga disheen baara way dhageysan waayeen weena soo weerareen dib ma lahan uu yiri ninka waana laga dilay wuu shahiiday wuu baxay. laakiin waxaan u sheegaynaa uu yiri Israa'iil waqooyiga iyo koonfurta Israa'iil meel kasta waa weerarayna awal meel kooban ay ahayd. marka dadka falanqeeyaashu waxay leeyihiin Xasan Nasrullah wuxuu u muuqdaa nin cidii markii hore hortaagneedba sida Iiraan loo lahaa inay hadda la fasaxay oo meeshuu rabo uu ka buskicin doono oo garaaci doono oo uu markaa hawsha qabsan doono. Israa'iilna waxay tiri gabar u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda annagu heeganaan ku jirnaa annaga iyo saaxiibadeen waxaanu ku dagaalamaynaa
haddiina lasoo weeraro in annaguna istifaacno weeraro qaadno marka xaalka gobolka halkaasuu maraa barnaamijkankii ka horeeyana waa ogeydeen in maaragtay maraykanka uu carabtii warqada u marinayo iiraan uu leeyahay arrinta naga damiya xaalku marka halkaasuu maraa marka xasan nasrullah hanjabaadaasuu deeriyey warkiisuna arrintaas ayaa ugu muhiimsaneed waxaa noo soo socda qodobo kale oo muhiima oo ka mid yahay arrinta ku saabsan abaanduulaha ciidanka iiraan oo isaguna hadal kulul jeediyey caawa laakiin waxaan ka hormarinaynaa wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov oo war soo saaray ruushka horay waxa isku haysteen maraykanka golaha ammaanka maraykanku wuxuu ku lahaa arrinta Gaza haddaan la joojin gobolkaas wuxuu ku yiri ruushka gobolkaas maraykanow adaa ka mas-uula wixii ka dhaca marka maanta hawshii halkaasee mare cirkay isku shareertay halkaasee maraysaa marka weli waxay taageeyeen mowqifkoodii Gaza inta ay socoto halkani nabad ma noqonayso maraykankaana ka mas-uulay leeyihiin waxa Gaza iyo dhibaatada halkaa ka jirta isagaa xallin kara oo joojin kara golaha ammaanka isagaa hortaagan meel walba isagaa hortaagan marka ruushku waxay leeyihiin arrintaa waxa laga qabto wuxuu sidoo kale ka tacsiyadeynayaa dilkii loo geystay Ismaaciil Haniya haddaba marka aan idin tuso wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov ayaa waxaa la sheegayaa in uu ugu baaqay dhinacyada in xaaladda ay dejiyaan gobolka bariga dhexe wasiirka arrimaha dibadda Sergey Lavrov dhinacyada waxa uu sheegay in xaaladdu ay qaboojiyaan gaar ahaan dhinacyada iyagu markaa arrinta wax ka xallin kara marinka Gaza iyo gobolka in markaa arrintaasi ay gobolka aysan uga sii darin dhanka kale wuxuu cambaareeyay weerarkii lagu dilay xafiiska siyaasadda ninkii ugu sarreeyay ee xarakada islaamiga ee Xamaas Ismaaciil Haniya kaasoo lagu dilay shalayto magaalada Tehran ee caasimadda waddanka Iiraan marka ruushka warkiisu halkaasuu maray markan waxaynu u gudbaynaa qodobka kale ee muhiimka ah ku saabsan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa waxaa la sheegayaa wuxuu dalbaday inuu la kulmo hogaamiyaha mucaaradka wayna kulmi doonaan inkastoo waqtigii ay kulmi doonaan aan la sheegin laakiin warbaahinta Israa'iil oo arrintan ka hor dhacday waxay leedahay ninkan wuxuu doonayaa inuu yiraahdo niyo culayska iga yaree amnigii waddanka khatar ku jira waana la soo weerarayaa adiguna waa i daba dhigatay waxa rabtaa sheegtaa mucaarad haddaa tihiin baasha naga qaboojiya dagaalka aan si wada jira u wada galno ninkanna wuxuu taagayaa bahoshan dadka yahuudda adaa ku riday ee isaga tag xukunka ka tag xaalkoodu marka halkaasuu maraa marka aan idin tuso warbixinta laga qoray warbaahinta Israa'iil waxay sheegeen Netanyahu inuu la kulmi doono ninka la yiraahdo Belbit kaasoo markaa ay ka wada hadli doonaan xaaladaha iyo isbedelada dhinaca amniga ee soo kordhay kanaalka 12 la yiraahdo Israa'iil ay leedahay waxa uu sheegay ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu inuu la kulmi doono maanta oo khamiisa ninka la yiraahdo Bara'iis oo mucaaradka hogaamiya Yair Lapid ninka mucaaradka hogaamiya kaasoo ay ka wada hadli doonaan xaaladaha ammaanka ee soo kordhay ninkii Netanyahu marka waxa leeyahay hay-adihii ammaanka waxay ku yiraahdeen meelaan god ahayn ma ku noolaan kartid barnaamijkaygii galabnimaan ku sheegay waa daawateen intaan daawano way daawan doontaa marka xaalku halkaasuu mara mucaaradkii uu rabaa hadda inuu xotxoto ilaa iga dhaafa qaylada iyo waxa kan waddanka aan wada difaacan oo kan mucaaradkuna waxay leeyihiin iska tag iska bax waddankan adaa bahoshan ku riday haddaba abaanduulaha ciidanka Iiraan warkiisa noo soo socda waxaynu ku yaranasanaynaa qadar xayisiisa waxaa dhammaanba bulshada reer UK rag iyo dumarba lala socodsiinaya inay jiraan fursado shaqo oo la xiriira daryeelka caafimaad ee keerka fursadahaasi qiimaha badan waxaa bixinaya xarunta lagu magacaabo Sana Carers ee ku taala UK dad ayaa jiraya helaya fursado ay ku shaqeeyaan saacad dad ayaa habeenkii oo dhan shaqayn karaya oo markaasi baahida la rabo dabooli karaya xaruntaasi Sana Carers waxa kale ay dadka ugu tala gashay in ay dadku la shaqeynayaan dadka markaasi baahida gaarka qaba oo ay guryahooda kula shaqeynayaan laakiin arrinta la yaabka leh wanaagsan waxa ay tahay in xaruntan Sana Carers iyo qofka shaqeynaya hay'ad u dhaxaynaysa aanay jirin taas oo macnaheedu yahay qofku lacagtiisii oo buuxda inuu qaadanayo la xiriir faahfaahin dheeraad si aad u heshid www.sanacarers
com. waxaan nahay Gastasos Group waxaan idin diyaarinay goob dalxiis oo aad u weyn qurux badan waa dalka Finland. dalxiiskaasi waxaad ka heli kartaa package muddo 5 sano ah sanad kastana waxaad helaysaa 7 lacag la'aan ah jiif quraac iyo waliba jimicsi Sona Hall Sports goob lagu ordo iyo dabaal dadka caafimaadka u yimaada in aan la raadino takhaatiir heer sare ah oo waliba takhasusaad kala duwan leh iyo shaqaale soo dhaweyn heer sare ah waxaa intaasi ku sii dheer gaari bilaash ah oo ka soo qaada airportka booqo website-keena oo nagala soo xiriir taleefanka wanaagsan khiyaaray mar kale meel kastoo aad joogtaan waxaynu soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena habeenimo haddaba qodobka ugu dambeeya barnaamijka ayaynu ku faaqidaynaa Iiraan hanjabaadeedu way iska soo socotaa way iska daba dhacaysaa barnaamijkeygii subaxnimo waxaan ku soo qaatay hogaamiyaha dhinaca diinta Iiraan Ayatollah Ali Khamenei inuu hanjabay uu yiri amara uu bixiyay hal weeraro Israa'iil hal looga aargudo ninkan maantana aasa loogu sameeyay muxuu ahaa aas yaana dhihine salaad janaaza loogu la tukaday barordiiqa loogu sameeyay Iiraan meydkiisana waa la soo qaaday Ismaaciil Haniya waxa la keenayaa leeyahay magaalada Dooxa ee dalka Qatar halkaas oo barito salaada jimcaha kadib masaajidka Maxamed bin Abdul Wahhab lagu la dukan doono kadibna halka lagu aasi doono marka warkii ugu dambeeyay hanjabaada Iiraan caawa waxa jeediyay abaanduulaha ciidanka wuxuu leeyahay waana la amray fasaxana la siiyay daraasadii iyo kaartadii meelihii aynu ku dhufan lahayn hubka aan rabno inaan ku garaacno Israa'iil ayaa hadda socda saacadaha soo socda marka wax kasta dhici doono leeyahay marka hawshaas waa ku jirnaa iyo sidaan isaga difaaci lahayn weerar kale haday nagu soo qaadaan iyaga iyo xulafadooda wixii oo dhan daraasad ku wadnaa u leeyahay haddaba aan idin soo warbixinta laga qoray sheekadan abaanduulaha ciidanka Iiraan wuxuu wacad ku maray in markaa ay aargudan doonaan oo Israa'iil ay weerari doonaan Israa'iilna waxay sheegtay inay heegan ku jirto oo ay isdifaacayso haddaba abaanduulaha ciidanka Iiraan General Mohammed Baqiri ayaa la sheegay in uu markaa sheegay in jawaabta ay ka bixinayaan dilkii loo geystay Ismaaciil Haniya ay tahay mid aan la dhaafi karin oo laga maarmaan ah oo jawaab ay siin doonaan sahyuuniyadda Israa'iil wayna ka shalayn doonaan ayuu yiri waxa ay sameeyeen haddaba wuxuu sheegay in markaa weerarkoodu hadda gabagaba marayo qorshihiisa Israa'iilna waxay sheegtay inay xaalad feejignaan oo aad u sareysa ay ku jirto iyadana bal wixii soo gaara halkaas wixii ka yimaada dhanka kale ninka madaxda u ah baarlamaanka Iiraan ee yiraahdo Mohammed Baqir Qalibaf ayaa wuxuu sheegay hadal uu ka jeedinayay munaasabadii loogu sameeyay barordiiqda iyo salaada janaasada Ismaaciil Haniya waxa uu sheegay in Iiraan ay xaqeedu tahay inay jawaab ka bixiso waqtiga ku haboon ee markaa hawshan ay kaga aargudanayso Israa'iil oo ay u aargudayso dilkii loo geystay Haniya haddaba marka maxaa meesha ka muuqda khubarada waxay leeyihiin hanjabaadu waa iska soo daba dhacaysa wax walba way socdaan hawshu meel ay u socoto lama yaqaano xaalku marka waa halis u maraa la leeyahay haddaba waxay soo kordha waa arki doonaa asxaabay qaybtaas waxay ugu dambeysay barnaamijkeeni habeenimo fadlan barnaamijka like garay oo share garay meel kasto aad naga daawanaysaan haddaad ku cusub tahayna subscribe saar YouTube-ka Facebook-na follow garay ku xirnow barnaamijyadeena xaqiiqda ku salaysan inta aan mar kale kulmayno asxaabay meel kasto aad joogtaan waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo